waa sheeko jacayl waana qiso xanuun badan. Waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabar, waxayna la magac baxday keebaa qaldan labadooda. habeen habeenada ka mid ah ayaa gabadha hurdo ka imaan waysay. Way soo kacday, waxayna bilowday inay ka fikirto murugta iyo dhibaatada xagga jacaylka ah ee ay dareemaysay maalmihii la soo dhaafay. Wiilkii ay isjeclaayeen ayaa ka tagay. Sidii ay u wada socdeen ayuu mar qora u soo qoray fariin qoraaleed ama message uu ku leeyahay, waan ka xumahay laakiin xiriirka naga dhexeey halkan ayuu ku eg yahay. iyadoo maysan garanaynin waxay ugu jawaabto, waayo dambi ay ka gashay ma wajarin. Muddo 3 sannadoodna way wada socdeen, wax kalena muusan sheegin oo aan ka ahayn inuu yiri waan kala harnay. inkastoo aysan ogeyn dambi ay ka gashay, haddana waxay iskaga malaysay ee isku qancisay kulley inuu wax qalad ku samaysay oo qoonsaday. muddo yar kadib, habeen habeenada ka mid ah ayaa gabadha iska soo labisatay, wayna ka soo baxday gurigeeda. waxay soo aaday meel beer oo lagu nastaa oo xaafadeeda ka fogeen. iyadoo beerta dhex socota oo ka fikiraysa sida ay nolosheeda isbedel ugu samayn lahayd una qancin lahayd, ayaa mar qora si gedis ah ku aragtay wiilkii ay jecleed oo isagana weli jecel. dhinaciisa ayaa u soo dhaqaaqday, markaas ayuu ku diri, maxaa halkan ka qabanaysaa? wiilkii ayaa ugu jawaabay, hay halkan ayaan iska fadhiyaa. gabadha ayaa tiri, oo saacadan ah oo ah 9:34 oo habeennimo, soo xilli dambe maaha. wiilkii ayaa yiri, waan ogahay saacada, waan la socdaa waqtiga ay tahay. fiiri abaayo, iga raali noqo, doqon ayaan ahaa, ma ahayn inaan jiro xiriirka aan kula lahaa. halkan waa meeshii u horeysay jacaylkeena aan isku sheeganay. taas ayaan ka fikirayay haddaan, sababtoo ah ma seexan karo haddii aan guriga tago. gabadha ayaa tiri, marka waa yahay maxaa xiriirkeena u soo afjartay? wiilka ayaa yiri, gabar kale darteed ayaan sidaas u sameeyey. runtii waana ku qaldanay tilaabadaas, waana ka qowmamaynayaa hadda. weli adiga ayaan ku jeclahay aniga. intaas markii uu yiri wiilkii, wadnaheeda ayaa aad u qaraacmay. waxay rabtay inay tiraahdo, anigaba waan ku jeclahay, laakiin maysan dhihin sidaas. waxay ugu jawaabtay, laakiin aniga kuma jecli adiga. waxaa sabab u noqotay inaan muddo 2 usbuuc ah awooyo, hurdo ma saaxin karin, waayo waan ku jeclaa. balse haddan wax kasta way dhammaadeen, ma ku jecli xilligan, waana ku iloobay. wiilka ayaa yiri, waan ku fahmay, laakiin fadlan sidaas ha samaynin. fursad kale isii. weligay waan ku jeclaan doonaa, weligay mana ka fogaan doono. gabadhi waa iska dhaqaaqday, iyadoo u muuqatay in codsigiisa aan ku gacansayrtay. hase ahaatee, qofkii markaas wejigeeda fiiri wuxuu arki karay inuu ilin fara badan indhaheeda ka daadanaysay. 5 maalmood kadib, waxay ogaaday inaysan dul qaadan karin. aad ayay daciif u noqotay. waxay doonaysay inuu mar wejigiisa mar kale aragto oo la kulanto. telefoonkeeda ayay soo qabsatay, lambarkiisa ayayna wacday. wiilka ayaa ka qabtay oo yiri, hello. gabadhi oo hadal salaamba gelin ayaa tiri, ma ogtahay habeenkii aan beerta lagu nasto joognay, waxaan ku dhahay kuma jecli, laakiin taas beentay ayay ahayd. aad ayaan ku jeclahay, waana ku xiisay in badan. fadlan ma kula kulmi karaa? runtii aad ayaan kuuga xiisay aniga. wiilka oo mooday inay farxad hareysay oo yiri, waa hubaal waan kulmi karnaa. aniga xataa adiga ayaan ka fikirayay 5 maalmood oo soo dhaafnay. aad ayaan kuuga xiisay, waana ku jeclahay. markaas kadib, gabadhay dareenkeeda iyo farxadeeda ayaa dib u soo laabtay.
hadalkiisii ee telefoonka ka maqashay iyo qosolkiisii ayaa farxad weyn ku heshay, waayo aad iyo aad ay u jecleed. Waxay diyaar u ahayd inay wax kasta ugu tagto si ay isaga nolosha ula qaybsato, wax kastana asaga ayaa u ahaa. Weli telefoonka lama jarin. Gabadha ayaa tiri, waayahay aan ku kalno beer ku taal magaalada dhinaceeda kale. Halkaas aad ayaa u qurux badan tahay. Waxaan rabaa inaan habeenkan caawa aan xasuusnaado noloshayda inta ka dhiman. Wiilka ayaa yiri, Gacaliso waa iga farxisay. Waxaad tahay gabadha adduunka ugu quruxda badan, anigana weligay kama dheeraanayo. Waxaan ku dhaartay inaan weligay inta aan noolahay ka tagin. Qof adiga ka fiican ma helayo adiga. Waana ku jeclaan doonaa inta noloshayda ka harsan. Gabadha ayaa tiri, waayahay Gacaliye, 30 daqiiqo gudahood waan joogaa meesha aan ku ballanay ee fadlan ii soo dhaqso. Telefoonkii ayaa labadoodaba gooyeen. Gabadha aad ay u faraxsaneed, waayo waxay hubtay inay murugo badan kadib ugu dambeyn la kulmi doonto jacaylkeeda, ayna si kalgacayl ah laabta u soo gelin doonaan. Gaarigeeda ayaa soo kaxaysatay iyadoo farxad weyn dareemayso. Kadib si lama filaan ah waxay bilowday inay ilmeyso. Sababtu maysan garanaynin, laakiin indhaheeda waxaa ka soo daaday ilin fara badan. Gaariga si xoog ayaa u waday, maysan ka warqabin inay si xawaarahaas ku socoto, maadaama ay maskaxdeeda ku mashquulsaneen farxadda ay la kulmayso markii ay gaadho goobta ay gacaliheeda kula ballansaneed. Iyada oo sidaas tahay ay haddana ku mashquushay inay ilinta ka socda indhaheeda iska tirtirto. Isla biriqsiba waxaa Mary ugu dambeysay jugo culus oo dhacday. Waxay soo neexday iyadoo isbitaalka dhex jiifta. Nasiib wanaag, dhaawac culus oo jab ah muusan soo gaarin, inkastoo oo jirkeeda dhowr meelood ka dilaacay. Gabadha ayaa tiri, maxaa dhacay? Kalkaalisada isbitaalka ee markaas gacanta ku haysay ayaa ugu jawaabtay, gaari aad wadeed ayaa gaari kale ku dhacay. Gabadha ayaa tiri, haye dadka la socday gaariga kale soo ma badbaadin? Kalkaalisada ayaa tiri, maya. Qofkii gaariga kala waday wuu ku dhintay shilka ka hor intii isbitaalka la soo gaarsiinin. Gabadha ayaa tiri, waayahay qof ayaan rabaa inaan waco, fadlan ma wacan karaa qofkaas? Kalkaalisada ayaa ugu jawaabtay, maya, waxaad u baahan tahay inaad nasato ee istiji fadlan, dhiig badan ayaa kaa baxay. Gabadha ayaa tiri, maya, wax dhib ah ma qaba aniga, idhaaf, qof ayaan la hadlayaa, 1 daqiiqo oo kaliya. Kalkaalisada ayaa tiri, maya, joog sariirtaada ee naso. Intaas kadib, haweeneydii kalkaalisada ahayd ayaa bannaanka ugu soo baxday qolkii, waxayna bilowday inay ooyso, weliba aad ay u ooneysay. Dhakhtarkii weynaa ayaa arkay kalkaalisada oo oohin meel la fadhida. Dhakhtarka ayaa ku yiri, maxaa dhacay oo la ooynaysaa? Kalkaalisada ayaa tiri, gabadhan wiilka Gacaliyaheeda ayaa wadi gaariga kale ee ku dhacay, wuuna dhintay intii isbitaalka u soo wadnay. Hadda asaga ayay leedahay waan wacaa. Arrinta dhacda iyada ma ogo, mana aqaan si aan ugu sheego. Kalkaalisada waxay ogaatay arrintan oo dhan, waayo waxay goobta tagtay inuusan wiilka dhiminin, wayna la hadashay. Sababtoo ah isagu muusan miir beelin, wuuna gartay in gaariga ku dhacay uu yahay kii ay Gacaliyiisa wadatay. Wuxuu u sheegay kalkaalisada inay beerta ay ku ballansanaayeen oo ku soo gudbay si uu ugu soo iibiyo ubax oo hadiyad uga dhigo saaxiibadiisa uu jecel yahay ee isku soo laabteen, kadibna uu hormaro beerta. Nasiib darro, isagoo qudhiisa si xawli ayaa gaariga u waday, taxadarna muusan muujinaynin. Dadka qaar waxay dhahaan, waxaa kaliya ee dad isjecel kala dhex geli kara ama kala fogeyn kara waa dhimashada. Qaarna waxay dhahaan, wax kala dhex geli kara ma wala jaraan.
haddaba bal aan isweydiino keebaa qaldan labadooda? Ma waxaa qaldan wiilkii oo markii ugu horreysay gabadha ka tagay iyadoo oo waxba ka galabsan? Ma waxaa qaldan gabadha oo markii cafiska weydiisay jaceylkeeda ee wax qalbigeeda ku jira been ka sheegtay? Midkee labadooda ku qaldan shilka taxadar la'aanta ku yimid? Ma waxaa qaldan wiilka hadiyadda laga maarmi karin u raadinayay gabadha uu jeclaa? Ma waxaa qaldan gabadha wiilka ay jecleed shilka ku dishay? Mise waxaaba qaldanay guud ahaanba jaceylkooda?